dilaa inuu wax dila maahan si kale uusan ku joogi karin asaga iyo qoyskiisaba. maxaad ka taqaanaa dilaaga quuta dilka? waa suuragal inaad muuqiisa horay u aragtay, laakiin maanta waxaan kaaga sheekaynayaa oo aan kula wadaagayaa qisada dhabta ee ninkani ku saabsan oo ay dadka dunida aad ula yaabeen. markaad aragto wejigiisa laga baqayo. inta aanan gudaha u galin qisada ninkani, waxaan kaa codsanaynaa inaad like garayso muuqaalkani, siina sheer garayso si uu u gaaro saaxiibo badan oo sidaada oo kale u wanaagsan, annagana ay inoogu noqoto dhiirigelin. magaciisu waa Nico. waxa uu u dhashay waddanka Maraykanka. wuxuu dhashay sanadkii 1968. waxa uu ka dhashay qoys ayaga dhan gaangistar ah oo nolosha ka dhacay. waxa uu ku soo koray guri asaga dhan dilka uu caadi ka yahay, daroogadu ay caadi ka tahay, hooyadiisa iyo kuwa asaga la dhashay dhan ay yihiin kuwa dadka dila, daroogana isticmaala. Nico 7 jirkiisii ayaa wuxuu iskuulka la tegay baskoolad oo uu asaga u arkaya caadi, taas oo muujinaysay dhaqanka iyo waxa ka jira gurigooda. asagoo yar ayaa waxa uu bilaabay in uu dadka dilo, dhaco, dhibaato u geysto. dhibku waa uu la koray. waxaa cajiib ahayd marka uu 15 jir ahaa in jeelka ama xabsiga la geliyey, taas oo ku sababsaday kadib markii gaari uu afduubtay iyo dadkii saarnaaba, taas oo markii dambe gacanta lagu soo dhigay. waxaana lagu xukumay 21 sano oo xabsi ah, laakiin 2013 markii ay ahayd ayuu xabsiga ka soo baxay isagoona wakhtigaa dhammaysan intii lagu xukumay. waxa uuna xabsiga ku jiray muddo 10 sano iyo dhowr bilood ah. halkii la rabay inuu xabsiga isku soo bedelo ayuuba xabsiga dembiyo adag ka geysan jiray, sida inuu garaaco dadka, isaga oo dadka xabsiga ku jiray dhowr qof uu ku dhaawacay. isagoo sidaas ay tahay ayaa haddana laga soo daayay xabsigii. magaalada ayaa lagu soo daayey. xabsigii waaba ugu sii daray, waa uu ku sii halaabay halkii uu dhaqan celis u noqon lahaa. waxa uu galay xabsiga isagoo yar, waxa uuna ka soo baxay isagoo nin weyn ah oo 26 jir ah. muddo markii uu bannaanka joogay, weliba maalmo ayuu howshiisa halkiisa ka sii watay. tan cajiibka ah ayaa waxay ahayd in qoyskiisa dhammaantooda ay ahaayeenba kuwa xabsiga ku jira ama kuwa laga soo daayey, taas oo ka dhigan in ninkani inuu ka sii dara ma ahine aanan laga sugaynin inuu soo wanaagsanaado, maadaama qoyskiisa dhanba ay u arkaan waxani wax caadi ah. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday in isaga iyo walaashii iyo mid yar ay ilma adeer yihiin in ay magaalada soo aadaan si ay gawaarida u afduubtaan. sida ay u socdeen ayaa waxa ay arkeen 2 wiil oo dhalinyaro ah oo gaari wadata. markaas labadii gabdhood intay soo boodeen waxay dhaheen, labada nin annagaa shukaansanayno oo gaariga ka dejinayna. kadib nimankii ayay u yimaadeen, waxayna ku yidhaahdeen, waa idinka helnay, soo baxa, meel luuq aan wada galne. kadib labadii nin gaarigii ayay ka degeen oo meel luuqa ayay wada galeen, ayagii iyo gabdhihii. kadib walaalkoodii ayaa inta gadaal ugu yimid bartoodii ku dilay nimankii. walaashiisana qayb ayay ka ahayd dilka oo mid ayay sii dhammaystirtay oo ay xabad ku dhufatay. kadib gaarigii ayay kaxaysteen saddexdoodiiba, halkii ayay kaga tageen meydkii. waaba u caadi waxa ay samaynayaan. kuna sii darso 10 beri keliya ayuu xabsiga ka maqan yahay marka uu sidan wax u galayo. waxa kale uu dilay nin ay isla soo koreen oo ay weligiisa saaxiibo ahaayeen oo ay xabsigana iskula jireen. ninkani dhowr mar ayaa lagu dhahay, isaga har, ninkani yuusan ku dilin, waa dilaa, laakiin kama uusan harin. ugu dambaynna isagii ayaa dilay. sawirkan kuu muuqda waa 24 sac ka hor inta uusan dilin wiilka ay saaxiibada ahaayeen. 2 habeen kadibna ayuu habeenada ka mida maamo gaari wadata istaajiyey Nico. markay istaagtana barteeda ayuu ku dilay, gaarigiina waa uu ka kaxaystay. waxa uu marayaa qofkii afraad uu dilo, weliba isagoo keliya bannaanka jooga dhowr iyo 10 maalin. kadib booliiskii ayaa soo qabtay Nico isagoo weliba diidan inuu wax dilay, laakiin DNA-giisa ayay baareen. ugu dambayn waa uu qirtay. waxa uuna yidhi, aniga waxa aan wax u dilayo waxa igu qasbay mas ilaahay ah oo dadka masaarida berigii hore qaarkood ay aaminsanaayeen, sababtaas ayaan dadka u dilayaa, ahna shaydaan. kadib maskaxdiisii ayaa la baaray si loo ogaado ninkani inuu waalan yahay iyo inuu caadi yahay. kadib markii maskaxdiisa laga shakiyey, dhowr isbitaal ayaa la geeyey. maskaxdiisii ayaa la baaray. waxaa soo baxday in uu caafimaad qabo oo uusan dhib kala qabin ninkani. kadib maxkamad ayaa la soo taagay ninkani, waxaana soo baxday in dilkii uu wiilashii dilay ay walaashii qayb ka ahayd. kadibna walaashiis ayaa ayadana la soo qabtay oo maxkamad la soo istaajiyey, taas oo ayadana lagu xukumay cimrigaha ha ku furto ama xabsi daa'in. waxaa la ogaaday in hooyadiis ninkani u soo iibisay bastoolad oo ay hadiyad uga dhigtay markii uu xabsiga ka soo baxay Nico, taas oo ahayd tii uu ku dilay dadka. 10 sano oo aysan wiilkeeda arkin waxay hadiyad uga dhigtay bastoolad. hooyadiis ayaa ayadana la soo qabtay waana la xiray. ina adeertiisa oo ayadana qayb ka ahayd dilkii labadii wiil waa la xiray. asagana markii maxkamadda la saaray waxaa la ogaaday in adeeradiisa, abtiyaashiisa, kuwa badan ay xabsiga ku jiraan, waxaana lagu xukumay dil, laakiin weli jeelka ayuu ku jiraa. waxa uuna xukunkaas ku dhacay 2017. inta uu xabsiga ku jiray ayuu dhowr mar isku dayay in uu isdilo, laakiin ma aysan u dhicin. wejigiis oo sidaas ah oo aad u jeedid asagaa sidaas u galay oo sakiin ayuu
soo qaatay asagoo sheegay in uu ku qorayo nambar shayaadiinta lagu yaqaano. xitaa xubintiisii taranka waxaa la sheegay in uu mar jaray oo uu rabay in uu ka dhigo mas oo kale. subxaan allah, markaad wejigiisa aragto waxaad u malaynaysaa inuusan caadi ahayn, laakiin dhakhaatiirtu waxay sheegeen in ninkan maskaxdiisa ay caadi tahay. bal ka waran daawade, qoys dhan oo ayaga dhan wada dilaa ah ayna ugu baxdaba in ay wax dilaan ma ahine ay